بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مريكنك أو هل مر كحناجي ترامب أو هل مر كبد حناجي حماس إسرائيل هل مر هذه سيدا معقول كنت أسمع أرماس أسدول تاجد دونا حتى أقدر جهاد الإسلامي خلاص الله هاي سياسة وكلا نفترض كذا كحناجي مركز سدح كوح أكل دوان أيوه هل مر إسكمل استهجي أنت أسدول تاجد دونا إن عكلا وحن كهل دونا إسرائيل أو شيء جيسا إن مريكنك إيجا كافتومي دونتو قال أهان ديار ضحى waxaan kaloo ka hadli doonaa biyihii Mareykanka ama Minnesota waxa soo weeraray Iran si u soo weerartay arintan waa ka hadli doonaa aan soo bilowno hal markab ama laba markab oo Iran la heshay labada markab waxa ajiib ah Mareykanka wardiinay Iran way u digtay waxay tiri ma soo mari kartaan meesha ilaa anaga idinkeena iyo inaad noo soo sheegtaan waxaad wadaan inta idin saaran korkii markabka saaran almuhim guud ahaan jihada ku jeeday wixii la midka ah labada markab way diideen laakiin Mareykanka ayaa waardiyeynayay oo waliba sida akhbaarta ay sheegayso macnaha hawada ahaan Scott yani hawada ayaa idinka waardiyeynayna annaga wax walba idinku soo socda difaacayna ama dilayna ama burburinayna idinka socda sidee sameeyeen maraakiibtii waxa dhacwa maxay labadii markab in Iran la heshay oo ay duqeysay labada markabba meesha maxaa kaaga cad inaynan soconaynin annaga ku waardiyeynayna dawladda adduunka ugu weyneed aan nahay intay ka dhacday inaynan soconaynin oo Iran meeshaasi ay u xureysan tahay nin kamid ah falanqayaasha wuxuu yiri Mareykanka ka dawlad weyn ahaan ka khibradooda aadka u sareysa ahaan ma waxay garan waayeen in Iran ama cid kale xogaa wax haysata awood xogaa leh inayna macquul ahayn si walba yacnihi in arintan oo kale maraakiib waaweyn laga qariyo ama la dhaho annaga kor ka waardiyeynaa kor aad ka waardiyeysay maraakiib ama maxaan ku dhahay doomo iyo ciddii maalan soo socota adiga duqeysay tusaale ahaan laakiin gantaal la soo jiheeyey oo maraakiibta lagu soo jiheeyey halkeed ka galaysaa sideed ugu difaaci kartaa diyaaradda ma lahan qaab ama qalab ama hub kuma xirna oo gantaalka soo socday kaga hortagto ayda halis galeysaba marka almuhim xaaladaasi fashil ka dhacay labada markabna sidaas Iran ku duqeysay okay waxa Mareykanka uu ku eedeynaya oo leeyahay Iran ayaa waxay gareysay oo ila wareegtay systemka ay ku shaqeeyaan biyaha Minnesota la siiyo oo waliba qaab electronic ah oo cyber attack ay ku sameysay sida ay leeyihiin macnaha oo taasoo keentay in qalqal oo galo taawaradii biyaha laga hagaayay iyo treatmentkooda xagga daaweynta iyo sifaynta wixii la midka ah systemyadii macnaha ayaa khalkhal ay gelisay marka Iran u badinana sida ay leeyihiin waa sidaasi falanqayaasha kale waxay leeyihiin waa laga yaabi karaa laakiin uma badna camal saas oo kale yani Ruushka iyo Iran yani sheegay Mareykanka arimahaas isku sameeya China muddooyinka dambe ku soo biirtay laakiin arin Ruush ay u egtaa horeysay ma ahan dhahayso macnaha inaan isku filnaanaan rabnaa inaan Mareykanka yani ka madax banaanaan rabnaa xagga dhaqaale ahaan xagga military ahaan kala wixii la midka in badan ay soo celcelisay laakiin hadda sida taqriiban ay warbaahinta ay warinayaan yani gudi ayaa jira Israa'iiliyiinta ay leeyihiin oo loogu talagalay ka shaqeyn doona kaliya sida diyaaradaha dagaalka ay u noqon lahaayeen kuwa Israa'iil ayada ay samaysato wax alla wixii maalan tusaalahan daruuri ah in Mareykanka ka soo qaadato ma ahane dhamaan wax alla wixii diyaaradaha dagaalka ku saabsan in Israa'iil ayada shakhsiyadeeda samaysato arintan macquul ma tahay oo ma noqonaysaa falanqayaashu waxay isku raacsan yihiin macquul way tahay oo dawlad walba oo in yar oo khibrad leh ayaa samaysan karta Israa'iilna hadda already diyaaradaha samaysaa tusaalahan drones ay samaysaa difaaci ay samaysaa bal ayada laga qaataa ama laga iibsadaa qaarkooda marka waxay leeyihiin nacam way dhici karaysaa oo kale saas oo kale yani okay aanu imaano arinta ka careysiinta halka mar dhacday oo Trump ka careysiiyay Hamas iyo Israa'iil iyo xataa Jihad Islaami wuxuu yiri Hamas waxay ogolaatay inay hubka dhigto Israa'iilna sidaas oo kale ay ka baxdo macna Israa'iil waxay ogolaatay waa maxay inay Gaza ka baxdo Hamas sidaas oo kale waxay ogolaatay inay hubka dhigto oo total yani hub daraad xogaa adigu askartoodii booliiska ahayd waatay dhigeen laakiin waxa laga hadlayaa militarigii Hamas yani tunelada ku dhex jiray iyo awoodii guud ee Hamas laga hadlayaa heshiis ayna soo saareen arinta ku saabsan in meel fiican oo maraayo Israa'iil waxay tiri
horta arrinta sheegaysa in aan yani ka bixin Gaza wax ka jira ma lahan meel arrintaasi aan ku ogolaanay ma lahan Xamaas oo hubka dhigay oo aan aragnay inay ka soo wada bixin tunalada meelaha ku qarsan yihiin taasaa keeni karta inaan Gaza ka baxno okay Israa'iil marka sidaas ay tiri arrintii been weeyaan tiri Xamaas aydan u soo laabo waxay tiri garantiina lama siinba inay Israa'iil ka baxayso garantigaas ma haysano saan hubka u dhignaa ama aan u ballan qaadi karno hubka inaan dhigayno okay Jihaad Islaami ayaguna waxay dhaheen qoraalka sida lagu qoray iyo waxa ku yimid waa been saxna ma ahan waxaan ogolaanay malahan meesha arinta ay ka keenan ayay jirtaa yani laga caleysay oo ah qolada la dhaho Board of Peace gudiga nabadeynta Gaza ayaga hadalkooda shir inay qabsan doonaan oo ay la wareegi doonaan labadan dhinacba ay kala wareegi doonaan sidaas ayaa macnaha hadalka ku jiray ayagana waxay dhaheen waxaan naga soo wargeliyay arinta ku saabsan waxaan xusuusanaa mataqaanaa yaa xusuusta Pakistan oo shirkii Iran iyo Mareykanka wafdigii waliba madaxweyne ku-xigeenkii Mareykanka iyo JD Vance oo hogaaminayay oo Marco Rubio kuma jiro waxa ahayn Steve Witkoff iyo Jared Kushner macnaha saddex mas'uul oo sarsare oo madaxweyne ku-xigeenka uu hogaaminayo ayaa Pakistan joogta dhinaca kale Iiraaniyiinta Abbas Araghchi iyo Mohammed Khalibaf iyo gudoomiyihii baarlamaanka ah ayaa ayagana jooga Pakistan la isugu tagay waa Mareykanka iyo Iran wufuud sare Pakistan madaxdeeda sidaas oo kala fadhisa wada hadalada ay socdaan ayadoo wada hadalada ay socdaan Trump Twitter ha soo saaro qoraal soo qoro Iran way isdiibtay wada hadalada hadda noo socdo waxay ogolaatay inay isaan sameynayso kada Iiraaniyiintii markay maqleen waa xanaaqeen waxay dhaw riyaa kuwii hortooda fadhi macnaha say wax u jiraan macnaha wax isku heshiinay fadhiga ka soo bixin madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka asagoo madax u qanayo soo baxay wuxuu yiri arrintan xogaa sax ma ahan inta aan macnaha wada hadalada noo socdaan in macnaha waxyaalaha qoraalka laga fogaado ayaan ku talinaynaa adii Trump oo si sarbeeb ula hadlay hadda marka Gaza dadka isku hor fadhiyay isku haayo dhan mid walba waxba u saariyay wax ka jira malaha Trump macnaha ilaa waxa dhacday waa maxay markii dambe ay sheegeen wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee heedan u maleynaya ama Congress-ka adiga saas oo kale yani in inta shirka iyo wada hadalada Iran ay socdaan Trump Twitter uu ka fogaan doono saas oo kale ayama dhan watii la way Trump taqriiban isbuuc ku dhawaad shan beri meelahaas wax ma ona soo qorin shib afka uu macnaha xirtay almuhiim sida ahaataba arintaas qolooyinkaasi sidaas lagu caleysiyay ama haddaan u imaado ugu dambeyn Spain waxay ku dhawaaqday 49,000 oo muhaajiriin Maroccan ah inay gudaha soo galeen qaarkoodana la arkayay ayagoo booliiska yani ay xataa soo caawinayaan dumar badan oo adiga meesha biyaha buuraha yani laga soo qaadayo qaar dhaawacmay qaar xataa biyihii ayaa adiga si u qaatay inkastoo la soo badbaadisay leeyahay almuhiim wixii akhbaartaasi ku saabsan insha Allah taala video wixii ayaan kusoo gudbin doonaa dabcan dhulka Morocco inay leeyihiin ay sheeganayaan oo dabcan asal ahaan dhul Moroccan ahaan weeyaan laakiin Spain dhul badan ay qabsatay oo dhulkii ay qabsatay kamid